مدن عبد الله عيسى العيس waxaan rabnay inaan ka warsano mudadii ay soo galeen ciidamada Itoobiyaanku ee Soomaaliya 2006 bishii December 28deedii waxaan maqalnay waxay target ka dhigteen meelo mucayan sida iskoolaadka isbitaalada iyo ilihii dhaqaalaha sida warshadaha waxa nooga sheegi karaa marka khasaarada meeshaas ka dhacday ciidamada Itoobiya markii ay soo galeen Muqdisho waxay sameeyeen waxay target gareeyeen isgoysyada si dhaqdhaqaaqa dadka ay u kala jiraan in ay meelaha isbitaalada duqeeyaan si wixii dhaawac aan loo geyn oo dadkaas dhaawac banaanka isaga dhintaan iskuuladii ardaydu ku jirtay si dad badan u dhintaan madaafiici ku hoggaansheen waxyaabahaas oo dhan markay sameeyeen oo 2 maalmood dagaal ku socday waxaa soo kordhay ciidankii la dagaalamay sababtoo iskuuladii iyo suuqyadii iyo gaadiidkii iyo wixii oo dhan ay istop gareeyeen dagaalkii sii kordhay wuxuuna keenay in ayaguna ay isticmaalaan madaafiicda ugu waaweyn sida BM-ka iyo waxaas marka waxaa dhacday dadkii haddii dugsi ku jireen haddii iskool ku jireen haddii suuq joogeen wixii oo dhan dadku wala xasuuq 9 maalmood ayuu socday dagaalkaas wuxuu keenay burbur dhaqaale iyo xasuuq loo geystay shacabkii magaalada way buuxdaa oo faaruq ma ahan marka meeshii hal madfac weyn ku dhacay ugu yaraan 20-30 qof ku dhimanaysa waxaa lagu qiyaasay marka estimation kaas in haddii aad iskool u ahaan lahayd isbitaal hadduu ahaan lahayd warshad hadduu ahaan lahaa maxaa ku qiyaastay basleen waxaa lagu qiyaasay $2 bilyan in muddadaas ay burburtay sida warshadaha isbitaalada gaarka ah iskuulada private-ka suuqyadii la deganaayo ganacsiga iyo shaqeynaayo gubtay marka ciidamadii la dagaalamay meelaha ay duqeynayaan ay ka raadinayeen mase waxa weeye ujeedo gaar ah ka ma iyaga ujeedo gaar ah ka lahayn sababtoo ah hadii maanta xabad ah ka lagu soo rido 20 xabo BM ha loogu joogo waxa kala dhacay dadkii xasuuqii iyo barakici iyo xabsiyada dadka geeyeen oo wada xireen مثلاً هذا تكتو حتى وقت كان لجوه إسبرتيبو وحلاقي يابا ويران لبكون أو قفل فيه إني يالان إنه دو مال لجو أروشي لفيه مقالة قفل سوق بتم بودورة عيان ماشي سبتورة. because waxa inaga dhaxeeyo taariikh dheer oo cadawtinimo